qoysaskani waa barakacayaal degan duleedka Baydhabo waxaa loo qeybiyay zakaatul fidriga ay ugu deeqeen muxsiniinna degan dalkaasi Jarmalka oo isugu jira Jarmalka muslimiinta iyo Soomaali wada degan halkaasi kuwaas oo soo wakiishay hay'adda Ansaar International fadhigeedu yahay Baydhabo. dadka ka faa'iideystay zakadan ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa in ka badan 500 oo qoys oo wajahaya xilligan laba fasal oo roob yari ah iyo sanad iyo bar wax kaalmo aysan ka helin hay'adii gargaarka ka shaqeynayay ee ku sugnaa Baydhabo. hooyadani waa Indhoolo waxay ka mid tahay barakacayaashii sakada loo qeybiyay waxa ay ka mahadcelinaysaa gacanta soo gaartay xilligan iyadoo aad uga muuqato yadadiilo farxadeed. alaamantiin boqolkiiba 40 salaamantii uu awdiinta antii dadkii Ilaahay ma haday madaxweynaha boqolkiiba 40 salaamantii intii dadku hadii adduunyo aakara Ilaahay ka shafe adduunyo aakara Ilaahay dad aakara dad adduunyo Allah ka furo furasho adduunyo furasho aakara Allah ka dhagka saasaseen ka salaamay walaaliyalka ilan baahno masaakiin dowlay ama waalankii kun shilin ku qaada wahay hadii daadan isi dad chamber dibar tumanber an ama wala isi yaliin qobloodi rasuulku suubnay asxaabtis inti raqti inti rumayti Allah deersi anta saaseen ka salaamay boqolkiiba 40 salaam magan Allah والبدن وبركة الله سينسي إلكي أوالد مقدقي شيء أفتين الله سينك دك الدنيا ذي إليل الله مسينك مذ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم سلامتين. ninkani waa naafo biro ku boodaya oo sakada dadkii qaatay kamid ah waxa uu iga waramay isaga iyo rag kale oo iyana sakada ay gaartay sida ay ugu soo aaday xilli ay baahi u qabeen oo gaar ahaan cuntada masagada iyaga qoysaskoodu u boholiyoobeen labadii sano ay barakaca ku noqdeen Baydhabo abaaraha roob yarida ka dhashayna deegaanadoodii uga soo carareen. انت هديتي انت معنا انت دداتي انت يوني يدو اجري الصلاه دكسي بارك الله فيكم وليبا odayaalkan sheegan khiyaartan sheegan lay wal kale la daraaw marle intiba hatu waldeeti ilaahay daaway wali hatu waldeerna kulli walaal joob walbaha inti walaal ko walhay walaal ii walsiiyo هذا والدنبض يوم الملأ صدقنا كل شيء جت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إيدا ونمسي بركاته بيدوائن أرجع ولا لذان إيدا ونمسي إيدا مهد سين فدان اسم روج لا يلوك عليه هتنسى أساس فدان أرجع هذا إيدا مهد سنتين كو مركز أساس ما يكون هذا لنا جت ما بالشدة ديالك وهذا مركب وهذا نبكي على يوقف إلهي كسوان والإلهي كسوان من نبكي على وهذا داول الآن بيل الآن بدر الآن ده حرمتهم والبني آدم كان قد أذكر بدن على كل إنسان ما يفضانا أنت ولا نشان دي مس أنت هنتوتي إلهي تونا أنت أرضي أدهو لون هذا كجرم تان أبودتون أنت هديبتيو أنت هذا عايشت أول هندي بخير الله سيو هذا شيء مركب ولد بجري هانا سينشاقني ما عنده عيانة وان عنده عيانة نمكي إسلام كهاي أو هديب بدي يا عنده عيانة إلهي أرويش إلهي سر أنك قاعد dhalinyaradani oo ka mid ah Ansaar International oo barakacayaasha soo gaarsiiyay sakada ka timid muxsiniinta dalka Jarmalka ay soo jirta Soomaalida iyo muslimiinta kale ayaa warbaahinta ugu waramay halkii sakada lagu qeybinayay. waa fartaasay hooba gurundurta iyo kuma bari galo halkan isiina meena gataan la sanfaday walaalkii dadku kaalmay fadi dadku walaalniyeen ee baahan haan banaanka roog haan gudu ka jaran dadku kaalmay fadi inna gataan مايسن لنا مركوات مرلمان مرسدها جزاك الله خيرا إن بدن أول ديبتين أنت لما استرى إن شاء الله دتكم مردر لانو مر ما يبغى إن شاء الله راشين لانو عيدي هذا وقتي هذا والبدن أسكو جران خير كين الله بدي مايسن لنا إن شاء الله دتكم ولا نيجي ولي أمبهني إن شاء الله. لان ديبي لما أجرا لكسي تدقيق شامبول ديريان يانتو والكعاد دن
eedan farahsini waayeli ka jar boos ka jarta jiis ka jarta eedan maatini way fadana ini dar iid nin waydi iidaha dhow dadku masaakin walkiidan haysadan way fadana ini dar iid nin waydi walaalow hadibi barakallahu fiikum safaylahni deeren eedan mahadsantiin baraka ayaalka baydhow safayla dagarsoon lansi karasiin kusugayan iyaalsho ilan wiishay waayeljo karasiin kusugayan iboostiyo eedan mahadsantiin walaalayaalow hadhowaada barakallahu fiikum sadaqada ayaa ah mid dadka bixiya furata maalinta dambe ee aakhirada iyo midda adduunyada iyadoo kan la siiyo ee miskiinka ay u tahay waxtar walaalnimo oo uu ku daboolo baahidiisa nololeed ee qoyskiisa iyo tiisa gaarkaaba gaar ahaan wax dhiibka bisha barakaysan ee ramadaan ayaa diinteenu islaamka aad u ammaantay taasoo ah mid addoonka baxsada oo alle kor ahaaye ugu bedelayo mid labanlaab ka badan tii hore uu bixiyey adduun iyo aakhirana uu ku liibaano Sheekh Aadan Dalmar telefishinka raadiyaha dalsan Burshawiinay Baydhabo Jinaay